boqor Ingiriiska ayaa walaalkii baadka qaaday xaaskiisii dhaxdinta u ahayd kiniisadii xilliga joogay baadariyadii kulaalay dhacdhaca boqortooyada ku noolaana ku sanduleeyay inay xalaaleeyaan qalgalkiisa markii ooridiisu dhadig miidhan u miistay ee geedlabeedu nafta ku samirsiiyaba ay dehan weyday wuxuu iska dulmadoobayay mar kale wadaadadii kiniisadda isagoo ku andacoonaya in la fadareeyo rukumadii markii hore lagu xalaaleeyay guurkiisa gabadhiisoo habaryar u ahayd imbaradoorka Rooma awgeed ayay ganafka ugu dhufteen baadariyadii inay fagfagaan xeerarkii awalba gacan ku rimiska ahaa dhacdadani waxay mar dambayna bari doontaa xeer cusub oo ku soo biirta kristankii awalba kala daadsanaa iyadoo dhabada u xaari doonta iskulaasho tiro badan iyo dhiig dhinjar ka dhiga wabiyadii Yurub qulqulayay waxaan idinka sheekayn doonaa sooyaalka madanaha ka kulul ee hanaqa isku jareen haybihii boqortooyada iyo kawaadirtii diinta masiixiga siyaasadda iyo diimaha loolanka sharka iyo khayrka xerta Protestanka haddii aan yar milicsano qarnigii 16aad oo ahaa waagii la yabyabay xerta Protestanka waxa reer Yurub la diifaysnaayeen duruufo tiro badan oo istu rasaysan badankooduna ay bawdiyad jabis u badnaayeen riiqdii dagaaladii ku daba dheeraaday ee dhaxda ka jabiyay sumcaddii ay ciidankoodu ku lahaayeen dunida iyo goobaha halbowlaha ay lumiyeen ayaa niyadda ka burburisay oo qabkoodii seetaysay nin daad qaaday xumbo cugsay dabaylo qabo oo neecaw naruuraha u niyeysteen ayaa jihaday jeclaayeen ka soo biiftaantay qaarad cusub bay heleen oo Amerika la dhaho xer barooyana waxay ku dhawaaqeen inay yihiin Protestankii jannada geynayay kristankii qalbiyada lahaa dhanka kale waxay ka samri laayeen caasimadii imbaraadoriyada Roomaanka bari ee Byzantine ama Istanbul hadda oo uu aasaasay imbaraadorkii Roomaanka ahaa ee The Great Constantine kiniisadii ugu weyneyd ee hogaaminaysay xerta ugu tirada badan kristanka ee Orthodox iyo Catholic oo gacantooda ka baxday imbaraadoriyadii Roomaanka bari oo jabtay iyo cabsiday ka qabeen in Cusmaaniyiintu ku soo aaraan Yurub inteeda kale ayaa ladqaba ku noqotay Yurubtii israadinaysay curashada qarnigii 16aad Rome waxay gacanta ugu jirtay boqorkii Spain ee Carloskii koowaad oo isku tilmaamay inuu yahay hogaamiyaha ruuxiga ee dawladda Roomaanka wuxuu ahaa inaan googaar Yurub ku muquuniyay seef caaradeed oo ku filqiyay imbaraadoriyadiisa ilaa iyo meelo Asia ka tirsan Britain uu haystay boqor Henry sideedaad iyo Francisco uu haystay Francis-kii koowaad waa boqortooyooyinkii uu loodin kari waayay dhulkooda ka ilaashaday Carlos intaynan hadalka la seegin godkiisaan jaleecna nolosha asaasi iyo abaabulay xertan ee u habeeyay kitaabkooga dooran Martin Luther waxa uu ku dhashay tuulo yar oo lagu magacaabo Eisleben oo ku taala dalka Jarmalka qoyskiisu waxa uu nolosha kaga jiray meel dhexe aabihii ayaa u diyaariyay inuu noqdo garyaqaan baray aqoontaas wuxuuna isku qasay barashada sharciga dabeecadda isbarbardhiga diimaha barashada Ilaahay ruuxaanta iyo dhidibbo adkeynta caqiidada kristanka gartuu bartay xeerarku ku saluugay bulshada siday u dhayalsanaysay iyo nolol maalmeedka dhiganaha masiixigu ballan qaaday ayuu arkay oo kala sal guuray iswaafajinta cadaaladda iyo diinta waagaas Catholic oo reer Yurub badankiisu aaminsanaayeen ayaa harawsaday maatidii aan kala shaandhayn jirin wacdiga baadariyada Martin waxa uu dul istaagay sayladii kristanku ka dhex furteen dambi dhaafkii lacageysnaa ee bulshada lagaga gadi jiray jagooyinka jannada ku yaala maankiisa ayuu sida boolka ugu wareejiyay ilaa heer dismisku diiday oo masaxay ilkihii madaxa boolka wuxuu go'aansaday in dadkan suuxsan uu koomada ka saaro oo cod dheer lagu diido dhiig miiratadan kan u saaradsanaysa masaakiinta jannada u ooman isagoo ka duulaya hagaajinta dhaqankan doorisan ayuu daabacay maqaaladiisii 95 ahaa sanadii 1517 kuna dhajiyay albaabadii kiniisadaha ee magaalada Wittenberg ee dalka Jarmalka qoraaladiisa waxa uu ku duray maalnawayaasha waxay daanka ku qaniinaan ma ahane aan dan iyo heelle ka galayn xariiqaha diimeed ee dadahaanshaha dhowra ayaantaas godkooda biyo ugu galeen xertii macmiilatay qarashka qiyaamaha lagaga baaqsanayay sheekadiisuna sidaas ayay ibafur u yeelatay dad tiro badan ayaa ayiday faalooyinkiisa kuwa kalena waxay u arkayeen hanjabaad horgoodinaysa qasriyadooda oo u baahan in laga takhaluso wadaadkii ugu weynaa kiniisadaha Roma ayaa muddo 60 cisho u qabtay Martin inuu ka toobad keeno dabkan uu shiday oo misana gaasta u sito kolkay sida ahaataba warkiisu waxa uu gaadhay imbaraadorkii dambaabi jiray Yurub badankeeda ee Carloskii koowaad Luther waagaas ayuu ku tiraabay hadalkiisii taariikhda galay ee taasaan ku taaganahay mana awoodo mid kale qaadashadeeda Martin qirinqir ayay doodiisu gashay oo fikta sare jarkeeda ayay qudhiisa tallaabo u jirsiisay inuu ka soo shalwado balse waxa uu magangalyo ka helay amiirkii gobolka Saxony ee Friedrich qasrigiisa ayaanu ku macsuumay turjumaadii Bibalka intay qalcadii Vatbed ahayd dhufayska waxa uu ku turjumay kitaabkii Bibalka luuqadda Jarmalka si ay dadka caamada ugu fududaato akhrintiisu ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran
kadeedka wadna taabadka ee haysta bulshadii Kiristanka ahayd ayaa tahlisiin weyday inuu sida aadanaha u noolaado. bartii ayuu uga faa'iidaystay daabacadihii casriga ahaa ee lagu farsameeyey magaaladaas si uu ugu faafiyo fikradiisa Yurub inteeda kale. may hogseejina xayasiis heersara ayay ka heshay jamhuurka. kitaabka injiilo ku qorna laatiin kootana ugu xidhnayd fasiraadiisu wadaadadii kiniisadaha ayuu baaqiisu ahayn loo bedelo afafka dhaladkii dalalka Yurub ka soo jeeday. mid doonyaqaad u kala noqda addoonka iyo ilaahiisa in laga maarmaayo nuxurkiisu ahaa si aan loo majara habaabin. 10 sano kadib fikradihii Martin waxay dhulgariir dadgariira ku rideen aqaladii madaxda ee mashaariicdooda kiniisadaha dhex marsan jiray ee aan laba cali isweydiin jirin. amarkii ka soo baxay maamulkii magaalada Worms ee ahaa in Martin yahay dambiile 1521 iyo shirkii labaad ee Ishbeya 1529 nuxurkiisuna ahaa meelmarinta go'aankii Worms iyo laalidda dib u habaynta tubta Protestanka kuna dhaqanka madhabta Kaatoliga oo kaliya una taageeray Carloskii koowaad ayaa hormuud tiro badan oo gobollo iyo magaalooyin ba haysta kala kulmay diidmo badhaxla. waxaanay suulka ku gujiyeen muhiimadda ay leedahay garulahaanshaha qofku diinta ama madhabta uu badheedho qaadashadeeda. tabtaas ayay ku abqaalantay ininteeduna ku biqishay diinta Protestanka. Protestanku waa ereyga macnihiisu yahay diidmo ama ka mudaharaad. waxay ka mudaharaadayeen kootada diinta loogu xidhay arrimo dhaqan dhaqaale iyo siyaasadba oo dhaxal siisay in damiirkooda qafil joogta isku rogo. waxay iska soo dhirindhirintaba oo dadka taagta daran ugu leedaan eelkii kiniisaduhu dhigeen. fikirkii Protestanku waxa uu helay meel godan oo isugu biyo shubto taageero laxaadlana waxa uu ka helay Yurubiyaankii asqaysnaa. boqorkii imbaradoriyadii Britain Henry sideedaad ayaa sidoo u joogay wadaanta u jiray hooyadii kiniisadaha Roomaanka ee Roma. Britain waxay ahayd boqortooyadii labaad ee ugu taagta badnayd Yurub waagaas. arrinta amankaaga lehna waa in Henry go'aankiisu uusan ku salaysnayn diin iyo u danayn bulsho toona ee waa afaaro kale. boqor Henry waa imbaradorkiis dhaxal siiyey jagada boqortooyada aan dhammaadka lahayn ee Ingiriiska. waa kalifaha kala geynta bulshadii Britishka ahayd iyo xertii Kaatoliga ee xurtada ku haysatay Yurub. Catherine of Aragon oo ahayd xaaskiisa ayaa habla dhashay oo wiilba u curan weyday uu dhaxal siiyo jagadiisa si uu u guursado Anne Boleyn oo uu ku tuhunsanaa inay wiil u dhali doonto. ayay wadaadadii kiniisadda Kaatoligu ka diideen meherinteeda. kolkaas ayuu boorka ka soo jafay hanaankii Protestanka xidhiidhkana u jaray isku rarantii Roma fadhiday. Catherine oo qaraabo la ahayd boqortooyadii Spain ayaa hore ula aqal gashay Henry walaalkii. Henry xalaal uma ahayn inuu guursado xaaska walaalkii ka hagoogtay siday qabto diinta Kaatoligu, balse cadaadis uu saaray wadaadadii kiniisadaha qalinka ayay ugu duugeen inay u hoyato. jeerkan uu ku soo laabtayna waxay baadariyada ku ahayd dil toogasho ah maadaama xaaskiisa uu rabo inuu furo ay awtaad wadaag la tahay boqor Carloskii koowaad iyo boqortooyadii sidaa uu ahayd madhabtan. Henry laba daran mid bay dooran siiyeen inuu Kaatoliyiinta xididada u siibaayuu door biday. sidaana waxa ku aasaasantay kiniisadda ugu weyn Ingiriiska ee xerta Anglikaanka. isaguna uu isku doortay aabbaha ka abatoriya halkaas. dhammaan xerihii kale waxay isugu biyo shubteen cariga Ingiriiska oo ballanqaad la isku halayn karayo sameeyay. kiniisadihii Britain waxay taabacsanaayeen madhabtii Kaatoliga, balse dib u habayn laxaad ayay ku sameeyeen iyagoo caga ay ku socotana uga dhigay afkaartii Martin Luther ee Protestanka. muddo markii laga joogay waxay Protestanku noqotay madhabta ugu fidista badan qaaradda Yurub iyo Asia ilaa ay hareer martay Kaatoliga iyo Orthodoxka. ajalo badan ayay ka galaafatay reer Yurub ayidaadda madhabtani, waxaana ugu caansanaa dagaalkii lagu leeday ee dhex maray Protestanka iyo Kaatoliga. dagaalkii 30 sano ee 1618 ilaa 1648 oo galaaftay malaayiin nafood una dhexeeyay dawladaha Denmark, Jarmalka, Sweden, Spain iyo Austria. joogsadayna markii la gaadhay heshiiskii Westphal oo damaanad qaaday in Kaatoliga iyo Protestanku nabad ku wada noolaadaan. dagaalkii The Dutch Revolt oo kumanaan ku dhinteen markii la iskacan qaadayna sababay in Netherland dal madax bannaan noqoto. dagaalkii Faransiiska ee diimaha 1562 ilaa 1598 iyo xasuuqii ka dhacay Bartholomew 1572 meydadkuna istuureen wadooyinka magaalada Paris. dagaalkii Schmalkaldic 1546 ee dhex maray boqorkii ruuxiga ahaa ee Roomaanka Carloskii koowaad iyo kooxdii Schmalkaldic ee la dhacsanayd madhabta Protestanka. 100,000 oo qof ayaa ku dhammaaday dagaalkaas, wuxuuna sababay in Jarmalku la soo noqdo gooni u ahaanshihiisa diimeed ee ka madax bannaan Roma. dagaalo 8 gaadhay oo malaayiin qof ku nafwaayeen ayay sababsatay madhabtani si loo hirgeliyo.
dunidu waxay waagaas ku tilmaamtaa casrigii heryada qurunta madow ee addoonsiga diimeed la iska tuuray yurubna heshay madax bannaani cibaado oo reynreyn leh haddaba daawade maxay kula tahay adiga fikraddaada xag hoose nuugu reeb lana wadaag asxaabtaada